عطاء بوقة وحويان وحنكون فصيل كراه أرنك كان دعضاً دعضي dad badan baa soo weydiinaya waxay leeyihiin maxaad boqor uga aamusantay uga hadli weyday maxaad uga muuqan weyday media waad ka muuqan jirtay oo aad uga hadli weyday waxaan oran karaa heshiiska kan sida looga booqayo ama looga hadlayo anigu waxaan u arkaa wax badan oo khaldan baa jira oo inaan ka aamuso igu kalifay ما هاينان مصبيحي كجبانيو واي مصبيحي نكوجو معارضة هذا كان هاي توسين أنا توسين يو كهذليا هذين نقطة أريمه لاسعانات هذين نقطة أريمها سياسة دي دور شوين كميد والبوان كهال أتكا وأنا كهذي شيء لكن أرنتا تان سيد اللوب وبونين يو ضدك حوجال بدنو معها أنا حقيقة ضبانوه ده مع دولة إثيوبيا أيالتي بدأ إن الدونتا أي هيد مو صوب العمين وحصوب العمي مظهرة وحقيبة فري هشيس إسبهان أي حكومة دي فرماتشو دولة إثيوبيا أبي أحمد وكتاليو أي وضياشين وحويا هشيس كاسي وحديقة إثيوبيا إنه وقلات تي دولة فدرال كاي أفرد كود إنه مالكشتو dhacdadaas iyadoo jirta dawladda weydoo xiriirka Itoobiya iyo dawladdii farmaajo si fiican buu hagaagay aad buu isugu dhawaa waxay gaadhay in muwaadiniin heshiiska la isdhaafsado la isu dhiibo oo aad iyo aad looga qayliyay run ahaantii dhiibista qalbi dhagax oo kale heshiis caynkaasaa jiray waxaa jiray oo tan ka horreysay waxaan odhan karaa arrinka kan dhacdada tan waxa bilaabay qolada la yiraahdo reer awdal ee la yiraahdo awdal state iyo ugaaska guud ugaas cabdirashiid anoo ixtiraamaya iyo xildhibaanada qayb ka mid ah xildhibaanada muqdisho jooga oo ka xusi karo ilaa 6 xildhibaan oo isugu yimi meesha la yiraahdo Addis Ababa laba arrin bay ka shaqeynayeen saaxiib isku dhow baan ahayn ragga ugaaska iyo ragga kale laba arrin bay ka shaqeynayeen labada arrin ay ka shaqeynayeen wuxuu ahaa memorandum of understanding waxay la galeen oromada iyagoo markaa leh waxaanu doonaynaa kililka shanaad magaalooyinka iyaga awbarre iyo lafaciisa iyo jiidaha aanu degno inay oromada ka tirsanaadaan Soomaali ka soo go'aan iyo inay leeyihiin dekada Saylac baan idin saxiixaynaa dabadeedna dawladda Itoobiya iyo oromada kililka oromada ay ka soo bilaabeen madaxweynaha oromada iyo hadii aan la bilaayay maamulkiiba ka xayay ilaa Abiy baa loo geeyay memorandum of understanding baa la saxiixay oo cad anu markaa waxaan ku taliyay warnayo arrinka kani xaq u malihidin waa meel horta waxa wada Soomaaliland baa ka tirsantiin waa marka labaad ee dawladda la degaa Saylac idinka jeebkiina kama goodo arrinkaas khilaaf badan buu inuu ku keeni karaa ciidan badan baa ka faa'iideysan doona waxa dhici doonta inuu musabiixi isaguna idinka dul saxiixo idinku dad muuqan waaya markaa noqotaan ka daaya igama ay garowsan way ku hal adkaayeen markaa waxay noqonaysaa heshiiskii caynka ahaa waxa kale oo xog igu soo gaaraysaa heshiiskii farmaajo dawladdan Xasan Sheekh inay cusboonaysiisay baa heshiis warku igu soo gaaraya laakiin anigu arrinaan hubo ma aha wase waa maqal markaa nin baa wuxuu yidhi uu gabiyo wuxuu hal waraabe dilay oo haddana weelad xalaaleeyay wax qalo hadii lagu yiraa aan wax lagu saaran inaadan weel u soo qaadateen imar u cadeebe waxa weeyaan anu waxaan qabaa musabiixi uu ku qasbanaaday markuu arkay dawladda federaalka oo gacantiisa ka saaraysa Saylac markuu arkay beeshii awdal deganeyd ee Samaroon oo la adeegsado iyagu intay tageen baarlamaanka dhexdiisa ku saxiixay baarlamaanka Itoobiya dhexdiisa ku saxiixay memorandum of understanding oo intaasi dhacday intii daad qaadi lahayd wuxuu ku khasbanaaday inuu isfahan Itoobiya la yeesho daadka ku soo jabaya marka waxaan qabi karaa Muuse heshiiska uu galay in ay sabab laf dhabar u ahayd dibta ka timaada ama cidda mas'uuliyadda koobaad qaadaysa dawladda federaalka iyo qolada awdal state iyo ugaas cabdirashiid
أنا وصل نقول ده ما نعيد شيء وقبل مدو إيشيس كان متاجر سنة مسوا كسور جدا وإحنا وين إيشيس كي مرات وركسور جدا متاجر سنة مسوا كسور جدا waxaan doonayaa hal arrin baan kuu sheegaya waxa weeyaan anigu dadkii u ololeynayay inay Soomaali mid noqoto oo dib xataa u midowdo ayaan ahaa waxa weeyaan arrimaha dhacdada wadadan Musabiix maray anigu waxaan qabaa waa wada uu ku khasbay waxa ku khasbaya maadaama dawladda federaalka iyo dadkii konsensuska xildhibaanadii dawladda federaalka ee awdal ka soo jeeday iyo madax dhaqameedadii iyo reerka raggii reer awdal ahaa heshiis ay dabada ka wada riixayaan ya si aanay eeg waxa jirtay oo xaqiiqa oo dhab ah ku sheegay taariikhda dib baa loogu noqdaa waxaan doonayaa inaan ku sheego anagu reerihii daraawiishta kaxayay ee daraawiishta habanaa daraawiishta ingiriis ciddii kacdoonka ku soo bilowday ee sayidka la socotay beelihii la socday ee suldaan nuur axmed ammaan uu hogaaminayay xaaji suudi shabeele uu hogaaminayay ina shicirin nimankii isaaq ee jibaysnaa ee yimi baanu haddii aanu nimi waxa weeye kacdoonka ugu weyn wuxuu nagaga yimi dadkayga daraawiishta ahaa beelaha daarood oo xukunkii daraawiishta ka yimi kolkuu ka yimi waxa boqorkii daarood uu diiday ma jeertay uu ka hor yimi uu la xididay suldaankii warsangeli maxamuud cali shire waa ka hor yimi ciise maxamuud oo isaguna jiif caaqiladoodii uu xid la noqday iyo cumar maxamuud iyo miisaan culus baa ka yimi beelihii ogaadeen uu ka soo jeeday waad ogeedo haddii aan leebelay kala kici gurdubi iyo gundig waa taariikh jirta marka halka markay maraysay waxay noqotay isaaq waxay ku khasbanaadeen inay ingiriis raacaan waxa kale oo jirta waa taariikh dhab aan kaaga warramaya waxa kale oo dhacday marka cali jaamac aamiil wuxuu yiri muslimiin kan kugu wadeen muuminimo khaasa gal maxasta ku nabad gasho magasho taada dhan waxa kale oo jirtay markii 60kii la xoroobay iyo intii ka horeysayba beelaha Soomaaliland waxay ka shaqeynayeen midnimo Soomaaliyeed waxay ugu soo horeeyeen cid isu soo dhiibta ee keentay dawladdii hadiyadu keentay iyaga ugu horeeyay maxamed ibrahim cigaal wuxuu nooga sheekeeyay 7 sanadood inay ku dhex silcayeen oo ilaahayeen war walaalahayow aan wax wada yeelano waliba ay beel shahawiye hogaaminaysay cabdullaahi ciise iyo ila kala wareegayeen iyo aadan cadde intaas oo dhan oo jirtay waxa weeye Soomaali kale la doono maahay iyagii baa la laqay way baabeen maalintii ay jaanis heleen marka beelaha isaaq maxamed ibrahim cigaal oo baarlamaanka uu ra'iisul wasaaraha noqday uu arkay inaan Soomaali la doonayo jirnay iyagana la laqay heshiiskii caruusa akor ayuu saxeexay ee arrimaha uu yiri African Union ka lagu dhisay ayuu saxeexay wata qayladii iyo wali ay halkii taagnaato anigu waxaan arkaa Musabiix markuu arkay laqadii hore la laqay wadadii ina cigaal maray ee cali jaamac aamiil iyo rag ka gabiyeen markuu arkay in loo jeedo inta yarun in la baabi'iyo meel kale uu ka degaa uma habooneen inuu heshiiska la soo qaatay isagu guushiisa qaato ayuu go'aansaday ma saxba ma khaladba Soomaali baa ka jawaabi doonta qodobka kale waxaan u arkaa anigu dawladda Xasan Sheekh qaylada ay ka wado arrinka meel qura laba meelood qura laga mudaharaaday xara dheere iyo xamar qura laga mudaharaaday Puntland meeday koonfur galbeed meeday Jubbaland meeday Hirshabeelle lagama hadlin maxay uga hadli waayeen de meesha la yaado koonfur galbeed Ethiopian baa haysta Xasan Sheekh dad awood leeyahay iyagu ka saari lahaa laakiin Ethiopian kaas oo ku joogan Soomaaliya inay qayb ka yihiin ciidamada ADMIS ama ciidamada AMISOM ay waxaan ku dhawaad farmaajo ciidanka Kenya naga bixin buu yiri ADMIS ka bixin buu yiri faragelinta Ethiopia naga baxday go'aamo soo saaray way socon weeyday Soomaad garan imika hadda waxa weeyaan Xasan Sheekh heshiis bay ku joogaan inay heshiis ku joogaan Jubbaland oo ay ilaalada Jubbaland ka mid yihiin Ethiopia waa waxad inay koonfur galbeed joogaan waa waxad heshiis bay ku joogaan maxaa diidaya inay heshiis ku joogaan Somaliland Ethiopia marka sababta qaarka ay ka ursatay xukuumadda ay ka qaylinaysa ya markii badda Kismaayo heshiiska la galiyay xamar lagama mudaharaadin meel kale lagama mudaharaadin inay yaro reer waqooyi fasiixa jaadan la yaado ayaa oroday markii dambena Mahdi Guuleed baa hogaamiyay tiimkii badda
وحويان مينس وحويان أرنتو متاجنا وحويان أنا جو حنو أركا محمد إبراهيم عقال باجمي تري وحي ولا لمن كيدلي هدو عبشدين وايو ولا لمن كيدلي هدو عبشدين وايو حاجوين دوغاوي يا بايمانه يا marka waxa weeyaan meeshatan waxa weeyaan ay hadda waxaan ku sheegayaa dekadaha oo dhan xukuumadda federaalku way wada ogolaatay berbere aan oo diidan baa la maalgeliyay ay ogolaatay ragii diidanaa baa ku jiray madaarka Hargeysa saasaan ahayn dawladda waliba Xasan Sheekh ayaa labadaba saxiix lahaa boosaaso waa la saxiixay oo maalgelin baa lagu sameeyay saarsan ciidan la yaado oo imaaraadku xukumo ayaa boosaaso jooga Kismaayo waa la saxiixay imaaraadka hadda loo saxiixay dawladdii ajnabiga waxa Burundi iyo Rwanda iyo Uganda madaxtooyada aanu ma geli karo airportka ma geli karo wasiirada ma geli karaan permission waxay heshiis bay ku joogaan Somaliland hadii markaa Somaliland dhibaatada qura ee ka muuqatay ya dhibaatada qura ee ka muuqatay loo qaylinaya maaha in ajnabi la diidayo maaha in faragelin la diidayo ya jihaadka leeyahay waqooyi baa lagu galay adeeg Kismaayo kaaga dhow iyo xabashada Hirshabeelle joogtay ku jihaad laakiin waxaan u arkaa inaanay meeshu ahayn musabixi cidda u horeysa ku kicilahayd aniga weey laakiin waxaan arkay ujeedooyin laga leeyahay arinta waxaad sheegtay in heshiiskan hadda uu ka horeeyo hore loola heshiiyey oramada ama dowladda Itoobiya oo xitaa xubno mas'uuliyiin loo geeyay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waqtigaasi maxaa arinta u soo shacab bixi weyday oo maanta markii heshiiska madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu saxiixay ay u soo shacabay waxaan ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud uu ogaa baarlamaanka beelaha Gadabirsi ka soo jeeda ee markii heshiiska ku galayay shugtigiisa waxaan qura ee ka hadlay xildhibaanadii Ciise ee xamar joogay qura ka hadlay baarika dhaleecay iyo odayaal ka hadlay sayl ciyaalka markay saxiixayeen awdal state minis waxa weeyaan Somaliland iyo qolada leedo isaaq in la goodoomiyo oo xaggana laga jaro hartina laga jaro Ciise iyo Gadabirsi laga jaro cid la taago la isugu tago siyaasad ah ayaa dawladda federaal ku shaqeynaysa dawlad xuduuda ilaalinaysa ma jirto dawlad badan ilaalinaysa ma jirto dawladda dana gaar ah leh cidda qura ay wax xumaysay haday jirto ya waxa weey dawladda federaalka ee meel walba saxiixday ka shaqeysay dawladda federaalka weey marka waxay uga qaylin weyday markay intan la sameeyay anigu xogaalka ka ah ee hadii la leeyahay aanu musabixi arrinka ku jirin oo diidanaa inta dawladda federaalka saxiixaysay Itoobiya meesha tan kuma ay tagin asxaan kuma ay tagin heshiis ay from A to Z baarlamaanka xamar ka warhayo dawladda federaalka soo saxiixday dadkii konstituensiga lahaa deegaanka lahaa ay saxiixeen Muuse kaas uu saxiixay dad lagu soo jebiyay oo meel ka dhaafaan lahayn weeyade laakiin markii iyagu ay saxiixayeen ma jiraan wax cad oo la soo bandhigo oo islaamka la wadaagay sida hadda arintan loo shaaciyo kale haday arrinkaygaasi been yahay anuu madax dhaqameed baana nin boqor baana kelmadiisa iyo qowlkiisu qiimeysay yahay ugaasku bari ha hadlo awdal state ha hadasho xildhibaanadii tagay ha hadleen hay'adin memorandum of understanding oo dekada saylaca waliba ya maanu gelin hay'adin abeenaala ana kidaba xal ban bixinaya xal boqor tooyaan bixinaya laakiin intaas way jirtaa farmaajo Muuse saxiixin cid leena ha hadasho Somad garan waxa loo qeylin waay madaxweyne international oo la qirsan yahay baa saxiixaya afar degadoode waxa loo midaharaabid waay maxaa kaga maqan xaradheere iyo Muqdisho Somaliland cadaawada gaarka ay u hayaan ay kula dagaalamayaan ilaa 60kii wax ka tirsan yihiin maxay ya anu musabixi lidii baan ku ahay laakiin wax aan isaaq sameyn 60kii sanadood 64kii sanadood buu sameeyay koonfur maalinta qura laga cadeysay maanta saxiixa gala waa ka aamusay dabadeedna laana wax weeyaan waanu tagnay xamar baanu tagno war xildhibaanadeedii baan qoran kari weey oo waliba beeshii aanu codka ugu badaysiinaynay ee aanu lahayn hadii la leeyahay Soomaaliya walaaltinimada boob iyo ihaana naga sameeyay xamar oo waliba ya leeyay habar gidir ma yahay Saleebaan ma dhalay cayr ma dhalay hadii la ya abgaalka waxba ka sheeg ma waxba naga meebuubinayo ya ihaanada la ku sameeyay ya waxa weeyaan ragayga xataa muxubadu haysay baarlamaanka hadda noo jooga ixtiraam kuma haysto doorashadii bay dhacday roob la sameeyay madaxweynayaashii sharaxnaayo dhan way ku raacsanaayeen inay boobkaas sameeyaan
وهذه وان كهض لي ريكوردينج ولا هي أنا كهض لي عبد حاشا كهض لي عبد إسماعيل صمدر ما كهض يا مركها وحن كله تن ولي وحن له xildhibaanada aan ogahay inaanay ka qayb gelin xamar jooga arrinkaas saxiixa marinda raftaani nooyin baan qowlka ku noqon doona waxaan hubaa labada wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Dr. Cilmi inta waan hubaa inaanay ka qayb gelin waan hubaa wali Cabdi Ismaaciil Samatar iyo Axmed Ismaaciil Samatar baa arrinka inay ka qayliyeen markii la saxiixay awdal isteed ay ogaadeen in dad badan oo boorama ay ka hadlay marka waxa weeyaan maadaama maalinta aan arrin kale anigu aan arrinta goobjoog ka ahaa oo aanan haddii aan labalay arkayay beeshii deegaanka nalaada walaalahay wax naga dhixayeen inay wadada martay ya waan garanayay inay ku soo oodmayso oo Muuse bixi dusha kaga handaraabayo waan garanayay marka maanta maxaan Muuse u qaylinayaa shalitaan qayli waaye anaga ugu tabasho badan oo Soomaaliya oo dhan isugu haysto awdal ka mid ahayd oo Soomaaliya oo dhan isugu kaaya tagtay oo nala xasuuqay oo nala laayay cabatin xafiis la geeyaa Soomaaliya ma leh عبتك الله قعوضة أنا قاعد عبتين بدن يا وحويان سامي قيبسك هذا نهاي دير أوردن هذا نهاي أو أنا حمر جوجني كل جاي ونكو إهاني سنين هذا ولي بتنحس الشيخ موجود صدق إنه رئيس الوزراء كفيهم كأفروا هيادود بهوسي من شري أو أي كتير تتنبه أدو أنت بس صفر بالغ يا حفيز كرسي لا أبو فديا تلا اللي مو فيديو حلي ما ندي تلا اللي مو فيديو وحن تاجر لها موقف كدولة تفضل عليك ما أنت تاجر لها ما تجيبوت كل شيء يسوق رئيس الوزراء كحيين كيو وزير ده يو مالية ده يو حولها جود يو كل لوتش وجيو إن هدي اللي بليه هاي إن أغل كسريو حلي بنا ده إن وزير ده كله جوجيو أنتوا كحيستو يادو وتلكس يسمى لنا أرجيل طلبة كل شيء بان طلال سينين أو حلو يديني يا مركا عباتي كان هذا يرتوح حوي واجد ثروابوي وكذا على كل حال كسو حوري conclusion هشيس كيتوبيا وان كقيلين لها كإمارات كوان كقيلين لها كميت كلا وان كقيلين لها يا لكن ما هو حقيلي أمريكا الصومالي اللي نقف وليه باش يساق أهي وهشيس كلو الصومالي أردني إنا يسوق تكتوك قيليسو محل لواي محي تبلانو هدي ويدي محي بيلي دارود عيدي وهدي ويدي محي وهدي واي دقل يمريف لو وهدي واي يا وحويان إلا أنت سعتي أنا سوق حريت قضية سعتي الشيء ذاك اللي قلت سنة إذا كم هذين يا مصبي حمر كم نعيب كي إصحين أنا نجوح نقد حيان أيام كل هذه أمريكا. دون حكري إن وهذا الوقف ما مجرد جيبوتي دولة جيبوتي من هنا أمريكا الصومالي سومالان ومركنا الأولى من هنا سومالان يسومالي هنكا يسوق تجين لقول شيء لسيهم بغاضة إذا مركنا يستبيك على وجود دون هذا الكلام. وهو نعكسنا يكسر بحين مركز لا يروح رجعان لكن ما نكذب ومساعدية كذب وحصل بحي شيء كان نوعا تلا هو هذا الكأوب يسنك على كل حياتك ورتهشيس كاسي أنا هو الصومالي هشيس ويصوت معه وأي مد نقطه ويستحقر يسوي حبك ما قبل واللي بدتك أول لين يعني لا جيس كأفريقيا دم بيني مد نقطان كشقيني أفريقيا دنيني وإحنا نقطان كشقيني صومالي إني أنا حمر وتجيني الصومالي أنا كشغل إن دولة الصومالية ضد بيت لهذا يا لكن واحد شرط هذا حس الشيخ يا ولا يلحق المكروسي إلا بأهله حس الشيخ خيانة وسمية وبكون عليه مصبيح كسمية 2020 سيلان يودي ده هاي واللي بقى وضعني مصر الصومالية واحد بدين حيرين يدولة دي سوى هشيس كله قال الله بدي يكون يلا بيت طبعاً كي مقالة أنكرة حش خشيس كله صحيح هذا يوحي هوادي يوحي صحيح هذا ديار ده سجن حمر سوق قاعدين مكان قديش خشيس كبحر وسبح أنا أنت اللي يقوم بسمي يا ولا يلحق مكروس إلا بأهله هبات الله موسى نيتي مسمي ولا موسى خيانة كالوسي داريو حسن وحكى صحيح مدحوين الصومالية وحاول يقدر صحيح وما نتي كوباد وصحيح هاي إنه مسبح لي يصحح اللي بده ولا وأنا قبل يا صحيح بالله يا حسن مسبح كصحيح مركب خيانة حسن سيجا كوري وأنا اللي قدم بيه أنت جتها وأنت أول كجرت لبدا دولة مع هشيسكي كجرت مركا ولا صوبني ما يكون جرت لكن هشيس كارا ولا صحيح ورقدي مسبح هايو ولا ويدين كرود ودي ويدين كرتان
وسيرتي لسعودي ويدين كرتان حصلنا أنت قيلة ضوء عن وصحيح حيرة لقاها إيه ما هو صحيح حلولية وحلي يبيه وحلا قال حصل معها مشكلة دي سمعها أنت. وقتي أنا وقت بحدة مركل وقابكي طبعا بدل ما تشرحي بدل ما تخلي شهرين بدأ يوم الفجور ورئيس لما قال صفة فاصلة وقال شيء لكن إلا هذا ما عدين موقف تنكو آدم إن كسر الجديد إن تغير صنع تكوننا. waxay isqabatay dawladda Kenya ninkii la oran jiray Jomo Kenyatta bas si qabyaaladaysan loogu kacay oo beela yar ku kacay dadna waxay hadii ay isqabato wiili Kenya hadii si Kenya heshiis tahayna oo wadaninimo laga shaqeynay madaxweynaheedii baan hayay hadii ay isqabataan ku yaana hadii ninkii ga dheerayga booday ya la dheeraanay مين صدق ودني نمل الدولة هنا ونكست أو حجفي أو حمية لا حساب تماينا ودني بان هون كجور دي يعني لكن هذا يتعب مصبي هي يدور قرا واحد حمية أنا ما يساق واحد حمية بلقاونا يا حاجة كلا اللور ربيع مصبي حمال استاجي أنا ضدك أقول نحبايب اللي نحس استاجي تتنكو شيء تاوي فشيس كوس قالوا أنا وانكو خصبنا لأنه السومالي نما تشريني واحد شرت عداوات جارة تقول الفترة الكواد هذا خاطمية السومالي لم بيستلي أنا كحماية لدى قال لهم مصبي حي دولتيس لكن يقول دور كوضي إنه ما يقعدنا وحوي رصاصتي هوكي كينيين ويسكرف تاجين واعترافين صمت قرن يا هذا وادر كيسي فقي مظاهرات أبابلي أوضل وكأبابلي يسوي وزير الداخلي قال إن المصبي قرب سيو يستاجوا يسوي نعبان أنا نعب هاي وانكو خصبنا مركز. قلتي maxaa ka ku muuqan karay waqti xadirka markaad fiirisid ka boqolaan boqor Soomaaliyeed qabiilkii Soomaaliyeed hoggaankiisa tahay maxaa isleedahay halkii uu noqonayaa halku wuxuu joogaa wuxuu taagan yahay anigu halka waxaan u arkaa horta haddii midnimo la Soomaaliyeed la doonayana ya dad tadxiyo Soomaalinimo keenay oo lagu dhacay oo saami qaybsi loo diiday oo lagu xasuuqay oo cashuurtay bixinayeen diyaarada ku duqeeyeen oo dhibaato loo geysto wax tirsanaya halka yaale qof wax tirsanaya waa in la raali geliya waa in loo tagaa koonfurta waxay tahay waa loo hidaayada weynay u hiidaan beed laakiin in cadaawad maalin walba la sii abuuro oo la sii kala fogeeyo oo laga shaqeeyo ya wax aqliga Soomaalinimo ku iman mayso wax iska daa anaga iyagan iska daayay kuwii Puntland hooyada Soomaaliyeed lahaa ee intii dambe midnimada ka shaqeynayay nafiye maal galiyay ayaa la godoomiyay oo loo dagaalamay oo lagu faragelinaya oo inay doorashadooda caad u qabsadaan ya wata keentay dani inuu boqolkiiba boqol dib loo doorto keentay waxa weeye faragelinta iyo tadakhulka waxa la Somaliland iyadoo Somaliland oo wada jirta oo aan la qaybin haddii walaaltinimo doonayo in la doono oo dhaxgalka iyo qaybinta Somaliland la iska daayo وعداوة الدكار كان اللي يسكدايو والصومالي عدي وخلطه سي وذا جيره أو وناكسن لو وجهه لكن هذا النقطة عد جارة يا حين نقول إسا معارضة الصومال نحوجها أمسي مصبي شقدو قلي وحركة يا حمانته هل كنت الله يا حمانته يجي الشعب يقوده يا أن لو أبيه لكن أن عدي كله وحسمي سنة وين سجارة وصار مقطع أس تبالي حمانتي كلو إنه ولا سيتنا قرب الله سقوده وأنت طالع وأنت